Bilowga filimka waxaana la baryaa gabar lagu magacaabo Naomi. Naomi waxay isticmaashaa inta badan taleefankeeda gacanta. Maalintii oo dhan waxay isticmaashaa taleefankeeda gacanta marka ay joogto xafiiska iyo marka ay la hadlayso asxaabteeda iyo marka ay joogto xafladda. Naomi inta badan waxay ku tagtaa gurigeeda baskaasi wuxuu geeyaa gurigeeda. Kadib si kiis baa waxaa aga dhacay taleefankeeda laakiin ayada ma oga inuu taleefankeeda aga dhaca baska. Laakiin si kiis ayaa waxaa ku qaadaya wiil. Naomi way iska soo bixaysaa waxay iska imaanaysaa gurigeeda kadibna wiilka taleefanka ayuu qaadanayaa. Naomi subaxdii dambe waxa u imaanaysaa gabar saaxiibteeda ah taasoo ka kicinaysa hurdada. Kadib Naomi waxay dareemaysaa in taleefankeeda maqan yahay. Taleefanka way waanaysaa kadibna waxay wixaysaa taleefankeedii. Kadib taleefankeedii baa waxaa ka qabanaya wiil kaasoo iskaga dhigay islaan waayeel ah. Kadibna wuxuu u sheegayaa Naomi taleefankeeda inuu ka soo qaaday baska dhexdiisa oona u sheegayo taleefankeeda inay kasoo doonato. Kadib Naomi waxay leedahay aniga ayaa kaasoo doonaa taleefanka iyo hay. Kadib asiga wuxuu sameynaa taleefankii Naomi ayuu wuxuu ku celcelinayaa baaswirka. Kadib maadaama baaswirka u furmi waaye wuu xanaaqayaa kadibna wuxuu ku dhufanayaa miiska dushiisa ayuu ku dul dhufanayaa. Dhinaca kale waxaan arkaynaa gabar laga helay meydkeeda keenta dhexdeeda. Booliska gabadhan ayaa waxay ka dhaxlayaan meydkeeda keenta dhexdeeda. Kadibna gabadhan waxaa loo dilay si arxan darro ah maadaama ka muuqdo dhaawacyo fara badan jirkeeda. Kadib booliska ayaa baarista waxay aaga shakinayaan wiil lagu magacaabo John. Kadibna sarkaalka kiiskan baari ayaa wuxuu u sheegay saaxiibkiisa inuu aaga shakisan yahay John maadaama uu yahay John wiilkiisa. Kadib saaxiibkiisa wuxuu leeyahay midaas waa shaki. John qof kale ma ahna waa wiilka helay taleefanka Naomi. Kadib Naomi aabaheeda ayay caawinaysaa oo waxay ugu imaanaysaa hotelka siday u caawiso aabaheeda. Kadibna waxaa soo wacaya wiilkii oona u sheegaya taleefankeedii inuu si kiis ah shaashada aaga jabay. Kadibna oo geeyay meel lagu sameeyo taleefamada. Kadibna wuxuu leeyahay waxaan kuu sheegayaa meeshaas magaceeda. Kadibna wuxuu u qorayaa meesha oo ciwaankeeda. Kadib Naomi way soo bixaysaa waxay soo aadaysaa dhankii oo ciwaankeeda loo soo sheegay. Kadib si kiis waxay ku arkaysaa John oo maaskar xiran. Kadibna waxay soo galaysaa dukaanka ayay gudaha u soo galaysaa. Kadibna John wuxuu sameynayaa taleefanka Naomi ayuu wuxuu ku xiranayaa software sidoo ula soco lahayd dhaqdhaqaaqeeda ayuu wuxuu u sameynayaa software ayuu ku xiriyaa. Kadibna Naomi taleefankeeda ayay iska soo qaadaysaa oo waxay u malaysaa taleefankeeda inuu caadi yahay laakiin taleefankeeda waxaa lagu xiray software dhaqdhaqaaq walba qof walba ay la xiriirayso. John kor ayuu kala socdaa waayo wuxuu rabaa xogteeda dhan inuu maamulo oo ogaado wax walba ay qabanayso. Kadib Naomi asxaabteeda ay fariin waxyaalahaas u diraysaa. Kadibna John waxaasoo dhan kor ayuu kala socdaa. Shaqada ka qabanaysa hotelka aabaheeda John ayaa meesha yimid oo u sheegaya inta badan inuu halkan imaado. Way garan waysay sababtoo ah wuxuu xirnaa maask dukaanka dhexdiisa. Wuxuu weydiiyey cabitaanka ugu qaaska ah halkan. Hadda maadaama uu isha ku hayay moobilkeeda wax walba wuu ogaaday. Ciyaaraha ay jeceshahay iyo waxyaabaha ay necab tahay. Taasoo ku cajab geliyey Naomi oo hadda isna wuxuu iyada uga waramaya naftiisa in aan ka shaqeeyo shirkadda taas oo qabata dhammaan shaqooyinka la xiriira software-ka kombiyuutarada iyo internetka. Labadoodaba intay wada hadlayeen Naomi aabaheeda ayaa isna daawanayay. Habeenkii Naomi waxay seexatay iyadoo la hadlaysa asxaabteeda. Habeenkii oo dhan John waxa uu hubinayay moobilkeeda taasi oo ku bartay xog kasta iyo sir kasta oo ayada ku saabsan. Kadib subaxdii dambe Naomi waxay timid xafiiskeeda. Dhab ahaantii waxay ka shaqayn jirtay shirkadda. Halkaas ayuu John ku arkay sawirka gabadhii uu dilay kaas oo aan ahayn kii meydkeeda laga helay keynta. Intaa kadib wuxuu dooran doonaa ugaadhsigiisa xiga Naomi. Halkan waxaa u yimid madaxii Naomi waxay sheegtay in shirkaddani heshay mashruuc aad u weyn waxaana sidoo kale qabanaysaa shaqo aad u wanaagsan. Aad ayaan kugu faraxsanahay. Taasi waa sababta aan ku laablaabayno mushaarkaaga laakiin tani ha u sheegin asxaabtaada kale. Haddaba John wuxuu maqlay waxaas oo dhan. Halkaas ayuu sarkaalkii oo ah John aabihii yimid gurigiisa oo wuxuu bilaabay inuu xaaskiisa la hadlo laakiin waxba uguma sheegin John. Inkastoo uu og yahay in John iyo hooyadiisa ay wada xiriiraan midba midka kale wayna sii hadlayeen. Dabadeed wuxuu sheegay xaaskiisa in gabadha lagu dilay magaalada wuxuuna runsan yahay John oo waan ogahay inaad asiga la xiriirto maxaa yeelay waan maqlay adiga iyo wada hadashaan labadiina waa la socdaa. Markay tani maqashay waxay isla markiiba ku jawaabtay maya ma rumaysnay wiilkaygu tani ma samayn karo. Isla markaa sarkaalka wuxuu helay fariin saaxiibkiisa wuxuu u sheegay inuu helay goobta John taasi waa meesha uu ku nool yahay. Kadib John
wuu soo baxayaa si qarsoodi ayuu wuxuu ku imaanayaa guriga Naomi. Naomi ayadana waxay dhiganaysaa xaflad maadaama mushaarka loo kordhiyey. John moobilkii Naomi ayuu soo qaadanaya. Halka sarkaalka saaxiibkiisa ayaa u sheegay in ay tahay meeshii aan ku sheegay goobta John oo ay timaaday in la ogaado inuu si qarsoodi ah ugu nool yahay halkaas. Sarkaalku kaligiis ayuu aaday si uu helo John. Markuu meeshaas gaadhay, wuxuu galay guriga oo wuxuu bilaabay inuu meel walba ka raadiyo. Waxa kale uu sameeyay sawirro halkan. Wuxuu kaloo ogaaday gabadha dhimatay hooyadeed. Dhanka kale, John sidoo kale wuu soo baxay. Hore ayuu u ogaa in qof guriga soo galay. Taasi waa sababta isagoo aamusan markuu gudaha soo galo oo halkaas ku arkay aabihiis. Gudaha halkaas aabihiis ayaa cidiyaha meydka ku dhejinayay cidiyaha. Tani wuxuu ka ogaaday in wiilkiisa John uu sameeyay dilkan. Hadda si xariif ah ayuu John aabihii uga yeedhay qolkaas. Oo markuu gudaha ku laabto, John wuxuu burburiyay wax kasta oo halkaas ku yaalay, caddaynta dhammaan dukumentiyada. John hadda wuxuu ku laabtay hotelkii Naomi kadib markii uu la kulmay aabaheed. Wuxuu sidoo kale sheegay wax la mid ah inuu halkan ku sii socdo oo ka codsado khamriga ugu fiican halkan. Naomi aabaheed wuxuu fahmay inuu been sheegayo kaniga ah. Wuxuu bilaabay inuu la hadlo Naomi. Habeenkii markii aabaha iyo gabadhu ay guriga ku socdeen, aabaheed ayaa Naomi u sheegay in John uu yahay qof been abuur ah. Waxba wuu naga qarinayaa, waayo markii labaad ayuu hotelkayga yimid. Horta uma malaynayo inuu saxan yahay, haddaba iskaga fogow. Taas oo ay ku leedahay aabe uma malaynayo, laakiin waa yahay waan ka fogaan doonaa isaga. John sidoo kale wuu maqlay sheekadooda. Habeenkii Naomi waxay la joogtay saaxiibteeda. Waxay u sheegtay John haddii uu wax yar beddelo muuqaalkiisa, taasi oo ka dhigi karta timihiisa gaaban oo iska bixiyo muraayadaha, kadibna wuxuu u ekaan doonaa mid aad u qurux badan. Saaxiibadeeda waxay tiri, aniguna waxaan rabaa inaan arko asiga. Dabadeed Naomi waxa ay u ballan qaaday in u keeni doonto. Askarigii ayaa u yimid oo la kulmay gabadha dhimatay hooyadeed, halkaas oo ay ugu sheegtay in inanteeda moobilkeeda uu meel ku dhacay. Dabadeed shaashadii ay jabtay, waxayna inanteedii ka heshay moobilkii dukaanka moobilada. Intaa kadibna wuxuu u ballan qaaday gabadha hooyadeed inaanan walwalin. Waxaa hubaal ah inaan heli doono gacan ku dhiiglaheeda. Ninkaas boolisku waxay isku mar ka soo qaadeen 8 meyd ah oo keenta laga keenay. Sababtaas aawadeed, sarkaalku aad buu u murugooday. Dabadeed subaxdii markay Naomi indhaheedu furmeen, waxay aragtay in madaxeeda u yeereen ku dhawaad 8 jeer. Taasi waxaa barbar socda waxay sidoo kale ka helaysay fariimo badan moobilkeeda, taas oo ay wax badan oo xun ku tidhi saaxiibadeeda. Waxaa intaas dheer in ay wax badan oo xun ka sheegtay madaxdeeda. Waxa kale oo jira qoraal ay ku sheegtay in madaxdeedu laabeen mushaarkeedii. Kadib waxay aadaysaa xafiiska, halkaas oo ay kooxdu aad uga caroodeen. Waxay qof kasta u sheegtay inayn garanayn cidda waxaani oo dhan samaysay, mana dejin mana dirin hal fariin. Laakiin qofna ma rumaysan. Waxay u sheegeen in meesha iskaga baxdo. Waxay kaloo la hadashay madaxdeedii, laakiin madaxda ayaa sidoo kale shaqada ka saaray. Waxay kaloo isku dayday inay wax badan u sharaxdo. Boos ma lihi, fariin ma jirto, waxba maan samaynin. Waxaan u malaynayaa in qof jabsaday moobilkayga. Taasi waxaa la macno tahay in qof uu gacanta ku hayo moobilkeeda. Marka hubaal waa inuu sameeyaa, taas oo madaxdeedu u sheegtay inay caddeyso. Aad bay u murugootay. Kadibna waxaa loo soo tiriyaa banaanka, waxaana loo sheegay dib dambe in halkan lagu arki karin. Kadib ayadoo ka xun midda ku dhacday maanta ayay iskaga soo tagaysaa meesha oo waxay ku fikiraysaa inay aado saaxiibteeda. Kadib saaxiibteedna way ka xanaaqsanayd oo waxay leedahay maxaad iga soo doontay. Waxayna ku leedahay saaxiibay iga raacno qalad ayaan kaa galay. Kadib John waxaasoo dhan koraya oo kala socday. Wuxuu u malaynayay in Naomi aad ugu dhowdahay saaxiibadeeda. Marka waa inay marka hore jidka
ka saarta. Ayada iyo saaxiibteeda waxay tageen saldhigga oo ay ugu warameen waxaas oo dhan. Dabadeed sarkaalka wuxuu sheegay in waxaasi oo dhan ay ku dhaceen internetka. Taasi waa sababta aan ku caawin karin, maxaa yeelay qofka sidaas kugu sameeyey ma qaban karno. Markay maqashay saaxiibadeeda way xanaaqday. Intaa kadib labadooda way ka soo baxeen halkan. Waxaanu arkaynaa Naomi taleefankeeda oo John oo kusoo diriyay fariin, waayo wuxuu afduubtay aabaheeda. Sidaa darteed ayada ayuu mashquulinaya. Wuxuu diidan yahay inay ogaato inuu aabaheeda uu afduubtay Naomi. Kadib Naomi waxay saartay dhanka hoteelka aabaheeda ayadoo walwalsan oo la yaaban waxa ku dhacay iyo qaabkay u dhaceen. Waxay leedahay waxaan yaa samayn karo ayadoo murugaysan oo aad u murugaysan oo waxaan wixii qofku ku sameeyey la yaaban. Waxay ka fikiraysay yaa samayn kara waxaas oo dhan. Markaas ay ka hadlaysay si ay qof aad ugu fiican kombiyuutarka iyo internetka. John wuxuu kaloo halkan yimid kaasoo u imaaday si cabitaan u qaato. Wuxuu soo aaday dhanka Naomi. Kadib Naomi ayaa u sheegaysa taleefankeeda in la jabsaday, dhaqdhaqaaqa taleefankeeda nala socdo. Kadibna wuxuu leeyahay qaabo badan ayaa jira oo taleefamada loo jabsado. Kadibna kaamirada taleefankeeda ayuu xaggeeda soo aadanaya oo wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaq walba sidaan kale ayaa loola socdaa. Karaa markii wuxuu leeyahay Naomi waxaan rabaa inaan wax kugu sheego sidaan wax kugu sheego waa aniga inaad isoo raacdaa. Naomi ayuu usoo bixinayaa dibadda. Dabadeed Naomi ayuu dibadda u saaray oo u sheegay in qof kuu dhow oo sidaan sameeyey, kaas oo sidoo kale yaqaanay furaha moobilkaaga. Sababtoo ah kadib markii uu furay ereyga sirta ah hadda saaxiibteeda waxay ogaatay in Naomi ayna la hadlaynin. Waxay weydiisay sababta ay ula hadlala'san tahay. Maxaa dhacay? Miyaad xanaaqsan tahay? Markii tani maqashay Naomi way xanaaqday. Waxay tiri waan kaa shakiyey. Waa inaad sidan igu samaysay sababtoo ah adiga kaliya ayaa taqaanay ereyga sirta ah. Tani maqashay saaxiibteeda aad bay u xumaatay. Waxay tiri wiilka John oo hadda yimid dartiisa waxaad iga shakinaysaa. Okay, haddii aad sidaas u malaysay markaas waan kaa tagay. Wax badan kadib waxay jabisay saaxiibtinimadoodii. Kadib meeshan ay iskaga soo tagaysa ayadoo oonayso ka xun saaxiibteeda waxa ay ku samaysay. Kadib booliska waxaa warbixin ku soo gaaraysa in duurka laga helay mayd. Kadibna booliska duurka ayuu baaris ku sameynaya ayadoo laga soo saarayo taleefan iyo mayd laga soo saaray meesha. Kadibna askariga saaxiibkiisa ayaa dhahay wiilkaaga waa inaan joojinaa. Haddii kadib dhibaatadiis ayaa badatay, dilkiisa ayaa batay, marka waa inaan dadka aan ka qabanaa. Kadib aabihiis ayaa dhahayo marka ugu horeysa wuxuuna leeyahay marka hore waa in laga xiraa dukaanka lana soo ogaado meeshuu asigu ku sugan yahay. Kadib waxaa loo galayaa raadis, waayo sababtoo ah asiga dhulmaaleys ayuu hayaa. Muuqaalka xiga waxaan arkaynaa Taami oo daawanaysa taleefankeeda gacanta ay ka daawanayso ayada iyo saaxiibteeda muuqaal iska duwan. Kadibna way xanaaqaysaa oo taleefanka dhulka ayay ku dhufanaysaa. Mar labaad taleefankii waxaa ka jabay, shaashadda ayaa ka jabaysa. Ugu dambeynta waxaan arkaynaa sarkaalkii oo soo ogaanaya dukaanka John iyo saaxiibkiisa. Kadibna waxay ogaanayaan dadkii lagu dilay magaalada. Inta badan kiisaska lagu dilo qaabka loo dilay ayaa halkan laga ogaanaya. Kadib waxaa la ogaanayaa inay jirto gabar sagaalaad. Kadibna waxay dhahayaan gabadhaas sagaalaad waa inaan ka badbaadnaa gacan ku dhiig lahaan. Kadib saaxiibkiisa wuxuu leeyahay waa inaan idaacadda ka baafinaa sidii loo qabtaa John. Kadib waxay imaanaysaa Naomi oo maqlaysa magaca John markay maqasho way ogaanaysaa inuu yahay saaxiibkeeda. Kadibna waxay u sheegaysaa John inuu taleefankeeda jabsaday oona ku dilo saaxiibteeda, haddana ay tahay qof keli ah oo meel walbo ayuu ka soo laalaabay. Kadibna Naomi waxay wacaysaa shirkadda John waxaana loo sheegayaa inuusan jirin magac la yiraahdo John oo ka shaqeeya shirkaddan. Kadib markay taas ogaato way murugoonaysaa. Kadibna waxay go'aan ku gaaraysaa in ay ka aarsato dhibaatada u geystay. Kadibna askarta ayay la heshiinaysaa oo waxay leedahay ninkaasi aniga ayaa daban u dhigayo oo gacanta nii soo gelinaya. Kadib waxaan rabaa baaqan aniga nii sheego inaad qaadataan. Kadib askariga ayaa dhahayo gabadhay naftaada halis ay gelin, ninkaas waa halis. Kadib waxay u sheegaysaa halis walbo inay u bareerayso. Kadibna waxay leedahay ninkaas anaga gurigooda ku balaminayo, waxaan rabaa inaad gacanta kusoo dhigtaan yuuna iiga baxsan, ninkaas waa dilay. Kadib waxay wacaysaa asiga ayay fariin u diraysaa oo waxay leedahay waxaad igu imaadaa gurigeyga. Kadib askartii gaari ayay soo qaadanayaan oo waxay soo istaageen banaanka ee guriga Naomi. Kadib asiga wuu soo baxaya oo wejiga ayuu iska soo bedelaya oo kiyaalihii waxyaalihii ayuu iska soo dhigayaa oo wuxuu soo aadayaa Naomi xaggeeda. Kadib si kedis ah askartii ayaaba gacanta ku dhigayso oo waxay dhahayaan istaag.
kadibna wuu istaagayaa. Ayagana askarta maadaama wejiga hore ay ku kasayeen, ninkan wejiga oo iska soo bedelay, kadib way aqoonsan waayeen. Kadibna asiga ayaa dhahaya aniga waad iga shakisan kaliya, laakiin sidaas ay tahay waxaad ugu soo taagteen bistoolo, waa inaan sharciga nii geeya aan nila dacwada. Kadibna waxay u sheegayaan inay raadinayaan qof dilaay ah oo gacan ku dhiigla ah. Kadibna isfahmi waayeen oo isfahmi laay oo kasoo gashay. Kadibna waa la fasaxaya asiga. Kadib Naomi John fariin ayuu usoo dirayaa oo ugu sheegayo inuu hadda mashquulsan yahay oona u imaanayo hadhow. Marka sidaa darteeda sidaa ayuu ugu sheegayaa. Kadib askartii ayaa waxaa soo wacaya taliyahooda, waxayna u sheegayaan inay ku jiraan kiiskii labadan bir lagu wareeray, waraadkiisana uu soo dhawaaday, mar dhowna gacan ku dhiiglaha ay gacanta ay ku dhigi doonaan. Askarigii wuxuu u sheegayaa gacan ku dhiiglaha waa inay si dhaqso ah ay ku soo qabtaan. Taliyaha aad buu u xanaaqayaa, laakiin wuu dejinaya oo wuxuu leeyahay ninkaasi goor dhow gacanta ayaan kusoo dhigaynaa. Kadib Naomi waxay la soo bixaysaa taleefan kale oo waxay gashanaysaa simakaarkeeda, maadaama uu John taleefankeedii hore oo jabsaday. Waxay la soo bixaysaa taleefan kale. Kadib askarta waxay u sheegayaan meeshani inay nafteeda halis ay ku jirto, ay iskaga tagto ee aadamada. Naomi waxay u sheegaysaa askarta inay ku ammaan helayso guriga aabaheeda. Sidaa darteed waxay imaanaysaa guriga aabaheeda. Askarigu wuxuu siinayaa kaarkiisa haddii ay dhib gasho siday ula soo xiriirto. Kadibna waxay leedahay dhibaato hadday dhacdo aniga ayaa kula soo xiriiray. Kadib waxay imaanaysaa guriga aabaheeda. Kadib waxay galaysaa qolkeeda. Kadib aabaheeda ayay taleefanka ka wacaysaa, taleefankana ma laga qabanayo. Si kadis waxay maqlaysaa taleefanka dhex qaylinaya guriga oo taleefanka John nambar cusub ay kasoo wici jira oo ahay. Kadib taleefanka xaggiisa ayay soo aadaysaa. Kadib say usoo cararayso waxay meesha ay ku arkaysaa waxay la yaabto. Taleefankii ayaa waxaa ka qabanaya John. Kadib way naxaysaa oo taleefankii dhulka ayay ku sii daynaysaa naxtin darteeda. Way la yaabaysaa oo taleefankan waxay ogaanaysaa inuu John ka jabsaday. Kadib John wuxuu kasoo dhex baxaya guriga gudihiisa, banaanka ayuu la soo baxay. Kadib John asigoo qanacsan oo faraxsan wuxuuna u sheegayaa haddii ay dhaqdhaqaaq ay sameyso inuu dili doono aabaheeda, waayo waxa uu afduuban aabaheeda ayuu gacanta ku haya. Kadib Naomi taleefankeeda wuxuu leeyahay waa inaad aniga igu soo wareyso. Kadib wuxuu leeyahay aniga taleefankaada waxaan kasoo dhex qaaday gaariga dhexdiisa. Maalinka aan soo qaaday taleefankaaga ayaan adiga waxaan kaa dhigtay bartilmaameed. Sidee baan kugu dhaafi karaa buu leeyahay. Kadib wuu soo kaxaynaya wuxuu keenaya dhankii aabaheeda meeshuu ku xirnay oo suuliga ahayd. Kadibna wuxuu leeyahay waxaan aniga kuu sheego wuxuu leeyahay waa aniga amarkayga inaad qaadataa koolada, waa inaad iskaga xirtaa lugaha. Kadib adigu wuxuu ku fasaxayaa biyaha ayuu ku fasaxayaa gabadha way oonaysaa. Kadibna way qashuucaysaa. Kadib gadaal ayuu kasoo maray oo gacmaha wuxuu aaga xirayaa kooladii. Kadibna sharooto ayuu afka ka saarayaa oo wuxuuna u sheegaya dhowr mar inuu rabo inuu dilo. Kadibna biyo ayuu ku ridaya asigoo qosla wuxuu ka qaadayaa falash ayuu ka qaadaya oo moobilkeeda ayuu ku sawirayaa. Kadibna wuu kasoo tagayaa banaanka markuu soo baxo inuu booliska fariin u diro ayuu damcayaa. Kadibna booliskii ayaa si kedis ah meesha kusoo galaya, xogtiisa ayay soo ogaanayaan. Kadibna booliskii ayaa istaag dhahayo. Kadib wuu kasoo cararaya. Markuu kasoo cararo kadib baa la qabanaya, gacanta baa lagu dhigayaa asiga inuu baxsado isku daya, laakiin ugu dambeyntii gacanta ayay ku dhigayaan. Kadibna waxaa la leeyahay aawa Naomi, wuxuuna u sheegayaa inuu ku dhex riday barkadda biyaha. Kadib odaygii ayaa soo ordayo wuxuuna kasoo saaraya barkadda Naomi. Kadibna waxaa loo soo jeesanayaa John uu la leeyahay John aabe wiilkayga aad baa loo garaacay. Kadibna waa lasoo jeedaya wuxuu leeyahay waxaan ahay wiilkaada aabe miyaad garanaynin. Markaas baa sarkaalka intuu ku qoslo buu leeyahay waliba nacasi oo wiilkayga meel iigu sheeg adiga wiilkayga ma tihi. Kadibna sarkaalku wuu xanaaqayaa oo wuxuu ku bilaabaya garaacis sidoo ugu hayo oo asagana u dhayaya wiilkaaga aniga weye. Kadibna sarkaalku wuxuu soo aadayaa Naomi aabaheeda soo naqaska uga fujiyo. Kadib waxaa la baarayaa boorso asiga oo watay ayaa la baarayaa. Kadibna waxaa laga soo saaraya dadkii inta badan oo dilay ayaa laga soo saaraya. Sarkaalku wuxuu arkayaa wiilkiisa taleefankiisa ayuu arkayaa, aad buu u oonayaa waayo sababtoo ah wiilkiisa asagoo isku ekaayeen. Marka sidaa darteeda ayuu ninkan John iskaga dhigay oo aaga faa'iidaysanaya. Kadibna wuxuu u sheegay inuu islaantiisii oo wac jiro oon iskaga dhigi jiro wiilkiisa John. Kadibna aad buu u xanaaqaya wuxuu soo qaadanaya bistoolo inuu dilo ayuu rabaa. Kadibna asiga weli wuu ilkakan wuxuu dhahay wiilkaaga aniga waa aabe aniga miyaad idilaysaa ama. Kadibna odaga xoogaa qashuucaya. Kadib waxaa meesha imaanaysa Naomi ayaa maqlaysa codka meesha kasoo baxayo. Kadib intay soo carartay ay dilaysaa asiga.
filinkeena maanta meeshaas ayuu ku dhammaanaya. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan subscribe, like, share, comment intaad noo taabso asxaab fara badan u gaaro. Haddii hore nala joogtana waa ku mahadsantahay la joogaaga.